saaxiib yaal soo dhawaada ku soo dhawaada muuqaal cusub waxaan maanta idin hayaa muuqaal idin kaga samayn doonaa masjid in ka badan 50 sano ku yaala magaalada Hamburg oo la yiraahdo Muhaajiriin waxaa ku soo tukada dad badan oo kala duwan oo halkan ku nool sidoo kale masjidkan wuxuu ku yaalaa in ka badan 50 sano waxaa ku tukada jaaliyado kala duwan ee ku nool dalka Jarmalka sida jaaliyadaha ka yimaada Afrika Turkida iyo sidoo kale Carabaha oo halkan yimaada iyo jaaliyadaha kale ee muslimiinta ku nool Muhaajiriin wuxuu ka mid yahay masaajidada ugu taariikhsan ee ku yaala Hamburg masaajidka waxaa ku agyaali jiray meel baar ah oo lagu cabo maxaa la dhahay qamriga oo lagu tumin jiray heese laga shidi jiray masaajidku ku agyaali jiray balse nasiib wanaag waa laga guuray in badan ay isku agyaaleen oo xogaa culays isku qabeen laakiin markii dambe way guureen hadda laakiin waxa laga dhisay meel timaha lagu jirto isku qurxiyo soo dhawaad masaajidka ayaan ku tukan doonaa ayaan gali doonaa waqtigii salaada ayaa la joogaa masaajidka sidaad arkaysaan magaciisa ku qoran waxaa la yiraahdaa Muhaajiriin halkan waa meeshii aan idin sheegayay ku taalay baarka albaab banaanka waa laga soo gali jiray halkan waxay u ahayd albaab laakiin hadda waxaa laga dhigay meel timaha lagu jarto maadaama si dadku u habaarayeen masaajidka dad jamaacada masaajid ku tukanaysay dhib badan ay ku qabeen maadaama meesha ay ahayd meel kalaab ah oo lagu tunto oo heese iyo waxyaabo badan laga shido weliba xilliyada salaada xilliyada ay aad u imaan jireen si loo habaari jiray ayay ka tageen Ja, warte, ich mache, ich gehe ins Klo, ja. halkan waa weysada meesha lagu weysaysto salaadii hadda ka soo baxnay halkan waa meesha la dhigto kabaha aniga waxaan qaadanayaa kabahayga maadaama salaadii aan soo tukanay dibadaan u bixi doonaa halkan gudaha waxaa ku yaala maktabad halkan waxaa ku taala duruus badan oo isugu jira axaadiis iyo buugaag kutubo diini ah oo la qoray oo halkan ku yaalaan oo ay ku jiraan siirada nebiga iyo quraanka kariimka oo la fasiray afaf badan loo turjumay si dadka aan aqoonin luqadda carabiga ay ugu faa'iideystaan meeshan waxaa ku qoran farshaxan oo ah farshaxan aad u qurux badan oo magac nebiga sallallahu alayhi wasallam lagu qoray ayaa ku jira hadda waxaan ka soo baxnay masaajidka halkan waa derbiga masaajidka halkan waxay ahaan jirtay baarka aan idin sheegay lagu tumin jiray oo qamriga iyo waxyaabo badan lagu cabi jiray habeenkii muusigooyin iyo waxyaabo badan lagu shidi jiray ilaa galbihii ilaa duhradii halkan waa masjidka oo dhisan in ka badan 50 sano waa masaajidka Muhaajiriin hadda aan ka soo baxnay marka sidii loo habaarayay ayay waxa dhacday in baarkii uu xirmo hadda laakiin waxa laga dhigay nasiib wanaag meel timaha lagu jirto oo la isku qurxiyo saaxiib yaal masaajidka waa ka soo baxnay salaadii ayaa soo tukanay ilaaha aqbalo muuqaalkii intaas ayaan ku soo xireeyaa
waxyaabo kale haddaad Hamburg ku sugan tahay ama Jarmal ku sugan tahay waana la wadaagi kartaa si aan barnaamij qurux badan aan ugu sameyno